haddii reerku geedii galo halkii loo guuraye hayaanku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray haddii reerku geedii galo halkii loo guuraye hayaanku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray hosiisaan muuqaaniyo habeen caddadaa ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roob hosiisaan muuqaaniyo habeen caddadaa ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roob horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan guuluga hele halkaa ka sii wade uhuro codka siiyo injiya kulmiyo ukaca injiya kulmiyo ukaca horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan guuluga hele halkaa ka sii wade uhuro codka siiyo injiya kulmiyo ukaca injiya kulmiyo ukaca بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها وذا نقل صعوتها كسر دوادا برنامج كان أو أنا كويجينو دقمة الدقوشي قبل كتقدر قدومي حسبك كل أهنا مرشح مدحويني حسبك ودنا مسبح عبدي أي كوي من السعودال شقاء الله حريرة سيدي بوشة الرئيس مالنا قبل كان كودكان لوجو عجلين لها قاعدة شذا كارك عد بحياش دروشيك سومالنا قدومي حسبك كل أي دقمة يوفتقي سو أي سحدين يجو تاجر بلارنا أي كلا كل مين بوشة دقمة كودكنايد برنامج كان أي كويجينا إذا كم بداوشوا عنه ونكسن halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa wafti uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna mujaahidkii soo halgamay mujaahid muuse biixi cabdi sacabka la tumo waxaana aad iyo aad dadka reer Dhoqoshay ee karaamada leh ee xilligaa bacadka u tuban iyadoo aan maanta gudoomiyuhu u socon arrin campaign laakiin uu socdo wacyigelinta diiwaangelinta sida uu dhigayo sharciga doorashooyinku boqolkiiba boqol baan idinka mahad celinayaa idinkoo iskiin isu soo abaabulay cidina aanay idin yeedhin taasina waa dareenka kalgacal dareenka wadaniyadeed dareenka xusbinimo ee idinka muuqda iyo himiladiina fog ee ay higsanaysaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer Dhoqoshay waa la idinku yaqaanaa maalin kastoo wafti qaran inoo timaado inaad kaalin mug iyo miisaan leh aad ka qaadataan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay allah idin garab galabaan leeyahay mudana gudoomiye dadkii reer Dhoqoshay oo aad kuugu baahnaa kuuna jeelanaa aragtidaadana aad u jeclaa walow badidoodu ay yihiin dhalinyaro waayo xilligii aad halganka ku jirtay kumaba aqoonin tiifooga ay ka arkaan mooyaane weli maad soo hor fadhiisan oo dabadaabay dhasheenba intii dalka la xoreeyey aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa maadaama aad xalay seexatay oo aad halkan ka toostay degmaduna waa meel madaxweynayaashu isku soo haleeyaan ay seexdaan halkaa waxaa ka muuqanaysa in madaxweynenimadii ay miiska kuu saaran tahay insha allah waayo waxaan sidaa u leeyahay
somalilan way cadow badan tahay dalku waa cadow badan yahay waa ogeedeen wixii layna soo markiyey waa dadkii gacanta ku dhigay kuwii hargeysa dhexdiisa ku soo laayey dadkii ajaaniibta ahaa ee magantaynoo ahaa degmada dhoqoshay waa difaaca qarannimada somalilan adiguna insha allaahu degmadii horaa loogu walqalay waxaan kaa rajaynayaa markaad ku guulaysato kursiga insha allaahu inaad u magacowdo gobol inaad ka dhigto sababtoo ah waad garan kartaa xilligii aynu halgankii ku jirnay hubaysnaa waa magaalada keliya aan laynaga qabsan laynaga gubin faqash soo gelin waa cadanyar mujaahid gobolkeedu waa miiska reer dhoqoshayow gobolkeedu waa miiska baan idinkuna idin leeyahay mar haddii muuse talada qabto dadweynaha reer dhoqoshay waynagii halkan waynu isognay innagu inaannu xusbiga kulmiyo dhammaanteen ahayn caad ma qarinaayo inaan xafiis iyo meel laynaga maamulo dhirta hoostiisu wada kulmiyo ahayd waynu iskaranaynaa waxaana yaraynu xukuumaddeenna ku yar taataabanayno markaan anigu in yar horboodaayo xejista waxbaan ku yar ruuxayaa waxaan reer dhoqoshay baan weli ku jiraa waxaan u yeedhayaa doctor cabdi yaasiin xaaji saleebaan oo ka mid ah madaxda deegaankan reer dhoqoshay waxaan idinku boorinayaa ayaan isku wacyigelinaynaa inaynu kaarka si wacan u qaadanno haddaynan kaarka qaadanin codayn kari mayno haddaynu kulmiye jecel lahay iyo haddaynu cid kale jecel lahayba runtii waxba tari mayno haddaynan kaarka qaadan waxaan u baahannahay inaynu kaarka qaadanno si aynu codkeenna u bixinno si aynu soo saaro xusbigeenna iyo madaxweynaha aynu doonayno inaynu soo saaro waxaan runtii aad iyo aad ugu celcelinayaa oo aan idinku boorinayaa inaynu kaarka qaadanno inaynu wada abaabulno miyi iyo magaalaba inaynu isu sheegno inaynu soo qaadanno kaarkeenna oo aynu dabeedna u diyaargarno doorashadeenna maanta halkaasay taagan tahay madaxdana waynu soo dhowaynaynaa wakti kulub baynu taagannahay madweynaha hadalka badiyo dhoqosha waa la garanayaa la tilmaami maayo waxqabadkeeda iyo wixii loo qabtay waynu wada garanaynaa koley anigu caafimaadkaan ahayo hay-adda caafimaadku siday u kortay intay kulmiga joogay waa ogtihiin markii horena 2 qol bay ahayd maantana waxa cusbitaal dhan baa ka dhisan in yar bay naga dhiman oo ambalaas ka mid yihiin intana waynu helaynaa wax badan baynu helay runtii ilaahay lagama abaarka daro wax kale waynu rajaynaynaa xusbigeenu wuu soo baxayaa wax walbaynu rajaynaa laakiin waxaa ka horraysa inaynu kaarhka qaadanno is abaabulno aynu u diyaargarowno doorasho ninku haddaanu dee hubba sidanin dagaal geli kari maayo hubka doorashadu waa kaarhka haddaad kaarh qaadan weydo waxba tari maysid oo ifi aakhiratu waxba ka tari maysid waayo weli deegaanka dhoqoshay baan ku jiraa waxaan u yeedhayaa xubin ka tirsan guddida deegaanka dhoqoshay maxamed saateeye isu sheegi mayna reer dhoqoshay markaynu nahay dee innagu kulmiyaynu hayno waynu sognahay iminkana kulmiyii baynu nahay mar haddaynu kulmiye lahayna codkeenna yaa leh musharaxeennu waa kuma muuse biixi cabdi weeye kaambaynna ma jira maanta waxa weeyaan waa kaadhqaadasho marka hore olole maaha haddii ololo bilaabmo siciid cabdi carraale ilaahay ha u naxariistee oo 500 oo halaad leh oo baali dhaya fadhiya ayaa mid 30 halaadii maqaaxi ugu soo galay isagoo ay wada fadhiyaan dabeedna wuxuu yidhi mid kala soo galayoo waan adeer geel iyagii maaragtay kii 30 halaad lahaa baa yidhi adeer wuxuu yidhi adeer geel waa kaayagee haladhade geel waa kaayagee haladhe horta xusbide waa kulmiye marka hore waa xisaab qaran laakiin codka iyo miisaaniyadda iyo awoodda kulmiya iska leh innaguna kulmiyaynuna waa muuqataa de dadka meelaha u yar baydhbaydhay baan kelmad odhanayaa dadka meelaha u yar baydhbaydhay baan kelmad odhanayaa farriina iyagu siday doonayaan ha u qaateen dantaa maaha ruux yahow inaad doorataa u cid dantaa maaha ruux yahow inaad doorataa u cid digniinna waxaa ah waddani baa ka sii daran demashkiyo xariirtaa waxaa inagu doonyaysan nimcadaa dadkeennaba rabbigeen ugu deeqay xusbigii dadaalka u galay ee diiradda u taagay diiraddu waa calankaa wakaa calankaa jamhuuriyadda somalilan wey
xusbigii dadaalka u galay ee diiradda u taagay nimankii dagaalamay markii daabax lagu mooday buu yidhi nimankii dagaalamay markii daabax lagu mooday ilaahay haddaaye kuwii faqashta daanduushay buu yidhi ilaahay haddaaye kuwii faqashta daandeeyey war hooy muusaa ku daandihinaya dahabkan maad raaci intaasaan kaga baxaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan siinayaa mustafa telefoon oo ka mid ah odayaasha degmada isaguna soo dhawaynaynaa waqtiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xusbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee mustaqbalka reer Dhoqoshayow waxaan idiin sheegayaa gudoomiyuhu wuxuu codsaday Dhoqoshi meel aan ahayn inaan u hoyin waana ka idin hoyday maanta gudoomiyuhu uma socdo olole wuxuu idinku wacyigelin doonaa kaar qaadasha maanta soconaysa waxaynu ugu hiilin karee Muuse Biixi ku dooran karaana waa kaarka waanu idinla hadli doonaa oo idinla dardaarmi doonaa intaas waxaan ku dhaafayaa taa waftidoo aan dhammaan isku qaadayo aan markii hore dhaafayna waynu soo wada dhawaynaynaa magac kastoo ay leeyihiin halkan hadal badani ma yaallo cadceed baynu taagannahay gudoomiyaha markaynu soo saarro waxaa laynagu qiimayn doonaa sida aynu wax u soo saarro muuse naf iyo maalba waa kula garab taagannay gudoomiye waana ku soo saaraynaa insha allahu tacaala wasiir dowlaha maaliyadda Yuusuf Yucboole ku soo dhow waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa mar kale gudoomiyaha iyo waftiga ballaaran ee la socota aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa inay maanta halkan inoogu yimaadaan oo caawa halkan xalaytana halkan nala joogeen gudoomiyuhu wuu sheegay Dhoqoshay waqtigii ugu dambeysay inay ahayd magaalo halganka hogaamisa waxyaabaha uu ku doortay inuu yimaado oo xalayta halkan u hoydo waxa ka mid ahayd wuxuu yidhi bal waxaan eegayaa magaaladii Dhoqoshay waqtigii ay igu dheeraa ugu dambeysay aan arko innaga runtii nasiib weyn bay inoo tahay degaankeennan waa isbarasho waa kulan kale oo wanaagsan sida la sheegay gudoomiyuhu maanta wax badan oo aynu qabno oo baahiya kala xisaabtami mayno runtii waxa weeyaan waxaynu kala xisaabtamaynaa insha Allah 5 sanadood dambe soo socda marka aynu xaqiijino ee madaxtooyada geeyno ee kursiga madaxtinimada oo ku fadhiisto ayaynu oran doonaa taasaynu maanta kala hadalay taasaan kala sii dardaaranay laakiinse maanta wixii hawlaha inoo yaala waxaynu kala xisaabtamaynaa waxa weeyaan waa dawladda maanta joogta mustaqbalka se waxaynu kala xisaabtami doonaa haddii idamka ilaahay ka dhigo gudoomiyaha taasi waa taas takaar qaadashada ee aynu ka wada hadalay waynu ognahay gudoomiye halka kan inta dadka halkan jooga cidda keliya intii aanu halkan joognay ilaa iyo khamiistii cidda keliya ee imanaysay ee kaar qaadashada dadka ka caawinaysay waxay ahayd xisbiga kulmiye oo keliya waa inaynu taa wada ogaanaa taageerayaasha xisbiga kulmiye hadday qurba joog tahay iyo hadday qolqol joog tahayba cidda keliya ee xaqiijinaysay ee dadkan investment ku samaynaysay ee waxgashanaysay ee kaar qaadashada ka caawinaysay ee hagaysay ee wacyigelinaysay ee dhaqaale bixinaysay waxay ahayd xisbiga kulmiye oo keliya cid kale oo wax nagu darsatay oo aynu aragnay ma jirto waad ogtihiin taas cid waliba wixii ayna gashatay bileenay waxa weeye xisbiga kulmiye hore iyo dambaysaba iyo mustaqbalka cidda keliya ee doonaysa inay dadka wax gashato oo ay mustaqbalkooda ka taliso oo ay siyaasadooda hagaajiso oo noloshooda hagaajiso waxa weeye waa xisbiga kulmiye taa waa inaad ogaataan innagana abaalkaynu u celinaynaa waxa weeye waa inaynu codkeenna siino oo sidaynu horeba u siin jiray aynu u siino iminkana aynu ugu celinno haddii idamka ilaahay ka dhigo sidaasaynu isku ognahay waxaannu ahayn annagu raggii gudoomiyaha maalintii dhaweyto dhagaxa la yaro turtuuray haddaynu reer Dhoqoshaynahay dhagixii aynu annagiyo gudoomiyuhu tuuray waynagaa ka faa'iidnay ee aynu ka wada shirnay xalay ee waxaasoo ummadii isugu yimaadeen waxaan leeyahay waynu ka heshiinay waxaynu doonayna waa laynooga ballan qaaday waxaynala gudboon reer Dhoqoshayow
inaynu kaarka qaadano oo aynu si wacan doorashada isugu habayno oo muuse biixi soo saarno yaynala gudboon waxaan anigu kaga baxaya oo ku soo dhawaynaya maalintaasaynu tegayna madaxtooyada maalintaynu muuse biixi geyno yaynu tegayna wixii aynu xukuumadda ka tirsanay maalintaasaynu helayna wasiirada imika fadhiyaana waxay ilaa xalay noogu ballan qaadeen wixii qabyo ah inay qabyo tirayaan markaa waxaanu leenahay taasaynu isku ognahay oo aynu ku heshiinay waynu halgamaynaa sidii inoogu halgamay ee faqashtii inooga kiciyey ee inoogu dagaalamay sideedaynu ugu halgamayno muuse xubin ka tirsan oo degmada deegaankana ah khaliif maxamed warsan kusoo dhow khaliif shacabka reer Dhoqoshay maanta waxaanu halkan isugu nimi ma aha campaign sidii horeba loo sheegay waxa weeye sidii loo qaadan lahaa kaararka ee la isu abaabuli lahaa gudoomiyuuna wuxuu halkan u yimi wacyigelin u bayahay iyo inuu meel kasta maro oo uu kuur galo sida loo qaadanayo kaararka maanta waxa la inooga baahan yahay sidaynu u muujino ama aynu xaqiijino inaynu soo saarno muuse biixi cabdi inaynu qaadanno kaararka oo loo howlgalo oo aan laga seexan taasaynu ku gaadhaynaa himilada aynu doonayno taasaynu ku gaadhaynaa inaynu muuse biixi cabdi saarno kursiga madaxtooyada Soomaaliland marka maanta waxaynu halkan isugu nimi oo gudoomiyuhu u socdaa oo u guureynaya oo labada cisho u socday sidii uu wacyigelin lahaa oo u ogaan lahaa siday u socdaan aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan markii hore halkan ka soo dhaweynaya waqti dan ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi iyo mas'uuliyiinta faraha badan ee la socota waxaan leenahay ku soo dhawow Dhoqoshay sidii raggii hore bay yiraahdeen Dhoqoshay waa kulmiye bilowgii bay ahayd dadkii la bilaabay ahayd maantana waxay ku jirtaa kaar qaadashadii waxaan mar kale fariin halkan uga dirayaa dhammaan reer Dhoqoshay iyo roortag dhowrba inay qaataan kaararkii taasoo ah taynu ku codaynayno haddii Ilaahay ka dhigo waa laga soo sheekeeyay taariikhda Dhoqoshay oo waxba ku noqon maayo maanta 7 sano horteed waxay kulmiye uu qabta waxay sidii Dhoqoshay ahayd Soomaaliland ahayd Togdheer hadda dib ugu noqoto waad arki kartaa waxa uu kulmiye qabtay oo halkan ugama baahna inaynu ka sheegno gabadhba ninba wuxuu damcay inuu gabadhiisa yaramaano markaasuu uu gabadhaydu dumarka kale intaasay dheer tahay buu marka xisbiga kulmiye de intaas u dheeriyay xisbiyada kale wax la masayn mayne insha Allah ta'ala isagaynu codaynaa codka siinayna hadii Ilaahay ka dhigo sidaasaynu diyaar u nahay kalmadan oranaya waxa weeye reer Dhoqoshayow la isma xantee xisbigii kulmiye hoygiisa top 10ka ku jirtaan meelaha lagu faano magaalooyinka lagu faano ee hoyga waaba ku jirtaan halgankiina number 1 baa ka ahaydeen oo maalin maydaan ciirin halgankii kurmiyana number 1 baa ka ahaydeen sidii baa la idin tirsanayaa waxa halkan jooga laba mujaahid oo midna askari yahay oo ninkii taliyaha ciidanka ee Dhoqoshay yahay ninna maayarkii magaalada yahay halkan waxa marayo kala mujaahidkii weynaayo Muuse Biixi oo madaxweynenimadii u socda halgankii uu isku xidhan yahay xisbigii kulmiye uu isku xidhan yahay waxa weeyaan abaalkiini waydu helaysaan badna waa hesheen badka kalena Muuse Biixi baa keenaya kaarka qaata u diyaar garooba doorashada soo socota qof yaanu meel inaga maqnaan ka xadka ka talaabay doona ka magaalada miyiga meel kala qabtay doona dadka ugu badan baa haydeen xisbigii kulmiye halkii kaga jirteen kaga jira khayr iyo baraka ayaanu idin la soconaa waxaanu halkan ugu hoyana waxa weeyaan inaanu hooyaygii waaweynaa ee kulmiye dhex seexano aad iyo aad baanu idinku faanaynaa Allah idin barakeeyo sida aanu idinku faanayna waxaanu idinka filaynana mustaqbalka la idinka helo xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan Saleeman Bukhari ayaa ku soo dhaweynaya aad iyo aad ayaan idin salaamaynaa idinkana mahadnaqaynaa soo dhaweyntii iyo qaabilaadii wanaagsanayd ee reer Dhoqoshay ee xalaytu say noo qaabileen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan kaliya sheegayaa laba qodob
labada qodob waxaa weeye qodobka koowaad reer dhoqoshay haddaad tihiin somalilan waa taa la sheegay baal dahabaa kaga jirtaan baalka dahabkaa kaga jirtaanna waxaa weeye inaa ahaydeen halgankii lagu jiray inaa ahaydeen xuduntiisii inaa ahaydeen taana idinkaa caddeeyayoo meesha guddoomiyaheedii doob uu ka mid ahaa raggii halganka ugu waaweynaa haddaa guddoomiye u dooratay inuu guddoomiyihiidii yahay degmada waxa weeye idinku halganka calaamaddiisii baa haysaan waana aad iyo aad ba ugu mahadsan tihiin ta labaadee anaad ugu ammaanaya anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka sanaag baarlamaankaana waxaa soo doorateen xildhibaanada golaha wakiilada xildhibaanka ugu dhaqdhaqaaqa badan ugu shaqada badan ugu aktifsan waa maxamed cali xirsi obaamuu la baxay madaxweynaha maraykanka oo ninkaana waa soo saarteenoo waxa weeye niman sahlan ma tihiin cali xasan maxamed oo cali mareexaanna waxa weeye wuxuu yidhaahdaa markuu faanayo wuxuu yidhaahdaa kow war maxaad u malaynaysaa magaalada dhoqoshay baa abtiyo waa meeshaan joogi jirayoo isaguna dee ragga intuu dheeryahay weyntaa dhoqosha ee sidaa isaguna ogaan marka waxaan idinku darayaa xagga xisbiga aniga shakigagama jiro waxa weeye halka kani waxa weeye xisbigu waa hanti ay leedahay reer dhoqoshay codkii ugu badnaa taageerayaasha ugu badnaa guurguur iyo geedi laydinka biqi maayo taa waxa weeye shaki kuma jiro waa idinkii sheegadoo dee halaha wixii idin dhaafdhaafaya ha iska jireen tii udub iyo kuwa soo socdaba laakiin codka inaad kulmiyo u diyaarinaysaan waa lagama maarmaanoo dee waa goobtii mujaahidiinta iyo halganka kan ninka maanta soconayaana waa muuse biixi cabdi oo ku suntan halgankii somalilan maanta ay somalilan ku noqotay ee maanta ku taagan tahay taana waxa weeye shaki idinka geli maayo codka waa u diyaarinaysaan aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa soo dhowayntaa wanaagsan waana idin salaamaynaa waxaan qodobkayga koowaad waxa weeye waa nabadgelyada somalilan waxay ku naaloolaysaa ay dadka dheer tahay waa nabadgelyada waxaa laynooga baahanya inaynu nabadgelyada aad iyo aad u ilaalino caruur iyo haween iyo cid kastaba inay ilaaliso qodobkaasi waa kaa qodobka labaad waxa weeyaan in reer dhoqoshay qaataan kaadhka waa lagu ciilbaxaa ciddaad doonaysa inaad riddo ayaad ku riddaa waa dagaal ugu xun weeyey kaadhkiinaasi yuu idin seegina kaadhka qaata oo isku abaabula oo kula baratama degmooyinka kale ee idinla midkaa taasina waa taa horta xusbiga kulmiya wuxuu noqday xusbigii mujaahidiintuu noqdo iyagunbaa halkan ka soo baxaya siilaanyo guddoomiyihii eesanabahaabaa ka soo baxay oo imika dalka xukuma oo si wanaagsan u xukumay muuse bixa hadda ku xiga oo isna kayuga ku soo jira ciddii kale ma garanaysaa mujaahidiintiina sidaasunbay daba socon doonaan reer dhoqoshay waxaan idin leeyahay markii dagaalka lagu jiray ee somalilan cadowgii maxamed siyaad barre siduu galay aa ogeydeenoo haweenka iyo dumarka iyo ninka iyo gabadhiisa iyo walaalkii uu meesha ku wada dilayey raggii cunayey maxaanku idhaahdaa abeesada iyo masaska iyo maxaanku idhaahdaa markay cunto waayaan ee ay taasi cunto u ahayd iyo nin cuni jiray maxaanku idhaahdaa bariis iyo baasta iyo kalluun dee miyaa simaysaan reer dhoqosheew waxaan idin leenahay xusbigaasi waa xusbigii mujaahidiinta ha la ogaado waa maalin weyn waa maalinii farxad leh waxaa inoo yimi oo inala jooga oo inoo hoyday guddoomiyihii xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha mustaqbalka mujaahid muuse biixi cabdi baa xalay inoo hoyday garabkiisa ilaahay ha galo waa inoo fadhiyaa waa inoo qudbadaynayaa si kalbiyo laaba baynu u dhegaysan doonnaa wuxuu doonayana waa siinaa insha allah bismillahi kariim halkan waxaa waftida culus ee uu hogaaminaya mujaahidku waxaa la socda
salaadiintii somalilan ee heer qaran oo aad moodayso inaynu raggeennan loo yimi ama degmadeennan loo yimi ayna ogayn lana salaamin yacnii salaadiintaasina waxay madaxda ama mujaahidka ama madaxweynaha ay ula socotaa oo ay ula guuraynaysaa inay aragto wixii aynu u hayno deegaankeenna wixii aynu u hayno ayay salaadiintu la socotaa u caddeeya salaadiinta somalilan ee heer qaran waxaynu u caddaynaa inaynu muuse biixi cabdi codka siino u caddeeya u taaga gacanta codka u taaga calanka u taaga wixii aad doonayso maanta insha allah bismillaahi kariim waad naga helaysaa anoo ku hadlaya afka degmada ama degmooyinka ama qaaradda aanu degno waxaa insha allah bismillaahi kariim waad naga helaysaa cod iyo cududba waad naga helaysaa maal iyo nafba waad naga helaysaa cod kaliya ku siin mayne maal iyo naf baanu waa siinanaa maal warsoo ma siinno soo cudud ma siinno miyaynu ka baydhaynaa halkaasaynu ka haynanaa waa inoo muuse biixi ballankeenna waa muuse biixi cabdi inaynu soo saarno wixii aynu tirsanayna inaga dhiman na isagaa inoo dhammaynaya insha allah bismillaahi kariim 2 sannadood iyo 6 bilood baan magaalada joogo ceelashaa 15 ceel baan furayaashooda hayn jiray oo silsilad ku xidhanoo waqooyiga qolyaha ka soo guuray iyo kuwii meelaha dagaalada socdo dhulkaasoo soo qaxay baan jiray idinku kaa qaata magaalada baana biyaha u qaybin jiray marka taariikhdeedana waa laga warramay waa taariikh aad iyo aad u dheer waa taariikh halgameed waa runtii waa magaalo aad iyo aad u fac weyn marka kaftankii yaraa iminka la tuuray layidhi guddoomiyuhu magaalada dhuqashay baan u hooyanayaa buu yidhi isagu de waa mujaahidoo dhuqashay dee beriga ay cadan yar ahayd raggii dee ka dagaalamayey buu ahaayo mala iyadoo cadan yartay oo dunida cadan yartay oo dalkaba ugu weyn unbuu ogaayo waa dhuqashay geeyi unbuu yidhi waxaynu u soconnaa kaadhar qaybin oo diiwaangelintii berigii dhaweyto aynu gallay oo kaadharkeedii la qaadanayo nuxurkeeduna waxaa weeyaan in imkana doorashadii lagu galo qofkaan kaadh ka haysan doorasho geli maayo madaxweyne u codayn kari maayo uu jecel yahay baarlamaan uu doonayo inuu doorto iyo golo deegaan midna u codayn kari maayo marka codkii badnaa berigii dhaweyto aynu halka diiwaan gelinay kaadhkiisii in laynu ku gubaabinno inaad qaadataan oo aanu warka idin soo gaadhsiinno oo muhiimadda idiin sheegno baanu halkan u maraynaa hawshaas yay naga baylihin ku dadaala qof walowba rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel kaadhkaagii doono cidda iminka joogtaana ha qaadato iminka intiinaas soo maydu wada qaadan halkaa joogtaa cid aan weli qaadanin miyay jirtaa inta maqanna gaadhsiiya inta halkan booqa xagarboodhle iyo meelahan ku jirtana soo gaadhsiiyo soo wada kaxeeyo yaa waxba inaga baylihin dhowr cishoo qudha inoo hadhay taa iyada culays badan saara waayo haddii kaadhkaa maanta aad qaadan weydo dee codkaaga iyo xuquuqdaadii labadaba waa waaysa taana intaasaan ku dhaafaya qodobka kale kollayba dee tartankii waa soo socdaa marka diiwaangelintaasu kaadha qaadashadaasu dhammaato dee doorashunbaa inoo hadhay bilaa ka hadhay waana la tartamaya dalka dee xisbiyaa jira tartan baa socda xisbi waliba maxaad haysaa buu odhanaya horta ilaahay mahadii weeyaano xisbiga kulmiya dee maanta dhoqoshay iyo meel kale toonna isbari maayo annaga hebel baana la yidhaahdaa xisbi cusub baanu nahay ninkaan wadnaa waa hebel waa kaa sidaa dee ciidanayd odhan mayso xisbigu waa xeeru dhalan dee waa xeeru dhalan marka dhoqoshay iyo dee la joogo waa kii ilaa iyo 2002 aa u codaynayseen waana dowladdii ugu waxqabadka badnayd xisbiga kulmiyo iyana dee markhaati madoon weeye xisbiyada idiin imanaya mucaaradka had iyo jeer mucaaradku wuxuu sheegayaa xisbiga xaakimka ah unbuu dad ku diraa wixiisuba waa intaa dee wuxuu odhanayaa wuu idin beylhiyey waxba idinmuu qaban sidana muu qaban annagaa wax idiin qabanayna marka waana dee hadal dee ololo oo
dee nin mikrofon sito oo hadal olole dee shubaya marka ay tahay kulmiye horta cid idinku odhan karta waxba dalka kama qaban oo idinka wax idinkama qaban horta ma jiro xisbi laydin barayana ma aha marka idin yimaada waxaa taa warka ayaga xeero dhalanka ahaa baa adeer noo joogee iska sii socda idinku qolihiinna kale weliba iminka anigu waa dee garanaysaano markii horena dee xildhibaanadii deegaanada laga doortay baan ahay iminkana wasiir baan ahay intaaba kulmiyaan dadka ugu baaqayay haddaan iminka dawladda ka tago oo berri idiin imaaddo oo idhaahdo waa wuxuu u xuntaa oo dawladda ma xisbina maaha ee kaale kana raaca iminkana kanaan wadaaye maxay igu odhanaysaa war qofka miyuu dhaqaaqay waa odhanaysaa waa siduya markaa imika horta waxaasaa dunida ka socda kii shalay kulaa xaggan soco ee ayaa haddana ku imanay kudhe armaya ka soo bax dee dadkeennuna sidaa maa hadde weliba guddoomiye dhoqoshi iyo markaad dhulkan marayso way dugaragtoyn iyo waxaa lagumaba yaqaanba waxaasu dhaqankoodaba maaha halkii ay ahaayeen baa loogu imanayaa codkii ay siilaanyo siiyeen ee madaxweynaha hadda ay siiyeen ee xusbiga kulmiye siiyeen axmed maxamed siilaanya siiyeen waxaan hubaa ka guddoomiyaha inuu kaga xil weyn yahay reer dhoqoshay iyo deegaankan oo dhan waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha xisbiga ku soo dhowo guddoomiye reer dhoqoshay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa dhoqoshay wixii cifaleh rag iyo duuru baan isgaranaynaa wixii dhallinyaraa isgaran mayno inaynu ismaqalamoysaynaa aniga horta barasho wanaagsan da'yarta faraha badan ma joogtaa sheegaya aniga waxay ugu dambaysay dhoqoshay berigu guddoomiyaha kaankii la odhan jiray jiibliqe dhalinyarada in badan malaha garan waysa alla wada xariistay si kale haddaan udhigana waa dagaal waxay ugu dambeeyey dagaalkii jaamaca qabar lagu joojiyey fakarta ee ugu dambeeye ugu xoog weynaa la doonaya lagu soo wariyo dhoqoshay socodkayga maanta waxa weeye in kaarka la qaato kaarka in la qaatana waxaa ku xigay in dawladdii la dhiso oo sharciga ay noo baneeyey 5 sanaba mar in la doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka si dhiig cusub dowladda loogu shubo xisbiga kulmiya haddaan nahay waa xisbi qaranku wada leeyahay oo galbeed ilaa bari somaliland u dhan tahay waa xisbi barnaamijkiisa ay ku aasaasan yahay inuu noqdo xisbi boqolaal sano jira oo somaliland wada lahaato oo jiilba jiilka dhaxlo oo kaayada halkan fadhiya iyo qaarna ay madaxweyne ka noqdaan kontonka sano soo socda kulmiya ma aha xisbi doorasho mar lagu galo kulmiya ma aha wax la yidhaahdo maxay yidhahdaan qoladan yar shortcut meel gaalo kaga bud xisbi loo maro ma aha nin intuu soo ordo kursi doonayaa xisbigu maalintaa kusoo haysto kaga cararana ma aha waxaanu ka mid tihiin haddii haddii aad dhoqosha joogiyo deegaankan dadkii seeskaa u dhigay xisbiga kulmiye dadkii waddadaa himilada fog le u sameeyey baa tihiin waxaanu ku wadaynaa intii hore u joogtay mooye somaliland inta kalena inay kulmiye isugu timaado waayo waa weel weyn oo somaliland leedahay oo mar walba lagu hayo danta guud iyo danta qaran ee somaliland markaa falsafadii aynu xisbiga ku dhisnay ayuu ku soconayaa oo ku jiraya maanta doorashada imanaysa saddexda xisbi saddex xisbi oo qaran oo somaliland samaystay laakiin way kala duwan yihiin sumaday kala leeyihin xisbiga wixii tartanka soo socda waa wada gelaynaa horena waa wada geli jirnay waa isnaqaanaado isaga garoonka marka laisku soo galo waa ka adkay maantana waxaan filayaa intii goolol ka dhali jiray in ka badan ka dhalayna xisbiga wadani waa xisbi qaran waa ixtiraamaynaa laakiin seeskiisa ayaa ageelkiis waa xisbi in ka soo cadhootay ucid iyo in ka cadhootay kulmiya isugu tegay marka waa xisbi aan weli xeradaba ku nagaanin xisbigaa wadani isaguna mid danta ummadda lagu hadlayn kara maaha anaa aad u mahadnaqay reer dhoqoshay halkan saaka waxaa noogu filan sooriyo waxaa noogu filan ixtiraam waxaa noogu filan codya kalgacal cadceeda taagan ee roorya carruur halka saa u fadhida intaasaa noogu filan mirge iyo muure guddida cabashadeedii cagaf baa ugu weynay
cagaftiina cali baa hayey calina cunahaanu qabannay calina waa dacwiyey cali wuxuu hi baasha waxaana qaranka waa cagaf qaranku leeyahay oo aanu soo diray oo ka dhaxaysa gobolka togdheer oo dhan dabeetana cishabo halkii ahow jirtaa waanu diraya haddaad dhiqoshatay 6 bilood baa hayseen dowladdaana shidaalkeeda iyo hawsheeda bixisay shaqadii ay qabanaysay way qabatay wixii dhawna way u soo noqon doontaa ee degmooyinka walaalaatiga ee togdheer ka mid ah qaar soo shaqaynaysa haddii loo baahdo dhibaato toodan way imanaysaa gudoomiyaha maydin baraa gudoomiyihina dhoqoshay inankiina gudoomiyaha maydin baraa wuxuu ciidankaa ka soo saaray awaaran 85 waxaa geeyey meelana araabi iyo gogti oo halku daahir iyo halkan ku dhashay ciidankii halka geeyey meesha qurjeeda ila busheey toddoba sanadood wuxuu dagaalamayay meesha ugu soo sakayso magaalada la yiraahdo Dibiile ee galbeedka dhaxanta nin wali qaban waayey wuxuu ku dhaawacmay tuulo yar oo weyn ku leeyahay oo u dhow wajaaray marka waa channel mujaahida oo aad ka dhigatay tuulalkada marka hadduu ku carooday hadduu marmarka qaarkood ku qatay xaq buu leeyahay waayo jabada hawlhul ma soo dhacday soo inaya qaarna waxa ka noqday cawlan waa in xaqayga aad iyo aad uga qayb badan marka loo eega shakhsiyan reer qosheeyo waxaan doonayaa inay dhaqaalaysan kaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal intaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka aanu ku eegaynay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi socdaalka uu ku yimid degmada Dhoqoshay isagoo gudoomiyuhu degmadan uu seexday waxaanu bulshada reer Soomaaliland ee degmada ku dhaqan iyo jidaha hoos yimaadaba ugu baaqayay inay qaataan kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid Ibrahim Iigal Axmed Jaamac Faarax oo meel kasta joogtaa bay ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh